Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowgan waxaan ku eegaynaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabaynaa DXY. DXY haddaan ka bilowno suuqa wuxuu sameeyey impulse correction. Inkastoo correctionkan haddaan sidan u eegno uu eegayay impulse laakiin aniga wuxuu yahay correction ayuu yahay. Marka DXY waxaan ka sugayaa inay hoos usoo dhacdo correction ay sidaa u samayso kadibna hoos usoo dhacdo. Marka badanka suuqa waxaan ka rajaynayaa inuu suuqani uu down trend noqdo. Suuqa waxaan ka rajaynayaa inuu down trend noqdo. Fursad kastoo downa waan ka faa'iidaysanaya. Suuqani hadduu up trend noqdo uu sameeyo impulse haddana correction uu haddana impulse sameeyo mar kastaba waxaan ka rajaynayaa correction dheer oo halkan waa la jebinayaa halkaasna waa la jebinayaa ilaa waxaan ka rajaynayaa ilaa xagga hoose in la jebiyo. Marka DXY waxaan ka rajaynayaa waxa weeyaan fursadda kaliya taan ka sugaya waxa weeyaan kaliya waa down trend. Isniinta wuxuu bilaabi karaa correction saasa kadibna wuu soo dhici karaa waxa kaloo dhici karta inuu toos down trend uu sidaa u noqdo. Marka DXY waxaan ka sugayaa kaliya waa chance-kan ka galaya waxa weeyaan waa sell. EURUSD halka ay marayso way ka dhaqaaqi kartaa waxay kala samayn kartaa correction kor ay sidaa ugu socon kartaa. Markasta anigu waxaan rajaynayaa in ay kor u socoto waxay jebin kartaa halkan way jebin kartaa halkaasna way jebin kartaa. Kaliya waxaan sugayaa ama raacaya waa up trend. EURUSD markaa buy ayaan ka sugayaa waxay samayn kartaa correction kor ay aadi kartaa halkan imikadan la marayana kor way ka aadi kartaa. Marka EURUSD waxaan ka sugayaa waxa weeyaan buy ugu yaraan waxay jebinaysaa halkaas. GBPUSD wax lagu soo jiray correction ka dheer baa lagu soo jiray waxaana waqtiga imika la jebinayo. GBPUSD weekii hore xaggan ayay kasoo dhaqaaqday aad bay kor ugu kacday kadibna correction baa la yar galay inkastoo correctionkani hal move yahay wuu eegayay impulse laakiin waxaa lagaga dhufanayay dadkii meelahan kasoo galay ayaa salka lagaga dhufanayay kadib waxaan ka rajaynayaa anigu suuqan inuu halkaa jebin karo halkaana jebinayo. Marka EURUSD waxaan ka sugayaa inuu suuqu halkaa jebiyo halkaana uu jebin karaa marka labadaba uu jebin karaa. Suuqan waxaan ka sugayaa impulse correction impulse. Marka wave-kan raacaya waxa weeyaan impulse-gaas. Trade kastoo up trend waan ka faa'iidaysanaya correction impulse. Suuqan iyo GBPUSD sidaan ka sugayaa weekend waa saas. AUDUSD haddaan u nimaadno suuqan AUDUSD hoos ayuu u socday ilaa marka laga soo bilaabo February bilowgeedii. Marka waxaan rajaynayaa inuu dhaqaaqan down trend-ka uu dhamaanayo. Marka imika waxaan ka rajaynayaa chance kasta oo up trend waan ka faa'iidaysanaya. Chance kasta oo up trend waan ka qaadanaya. Marka suuqan waxaan ka sugayaa AUDUSD impulse correction impulse. Sida kaliya taan ka sugaya waxa weeyaan waa suuqa inuu up trend aado. Chance kastoo sela oo hoos u soo dhaca kama faa'iidaysanayo. Kaliya waxaan sugayaa mar kastaba up trend. Hadduu halkan ka soo dhacayo uu ilaa meelahan aadaya ilaa meelaha hadduu aadayaba chance-kan kaliya ka raadinaya AUDUSD waa up trend. Ilaa halkee buu gaari karaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa halkaana waan ka rajaynayaa in la jebiyo. NZD/USD waxay la mid tahay badanka AUDUSD. Marka NZD/USD bilowgii February ayaa down trend-kani soo bilaabmay. Marka waxaan ka rajaynayaa down trend-kani inuu dhamaaday. Halkan waxaa la sameeyey impulse correction inkastoo correction-kani hal move yahay haddana impulse kale. Marka imika AUDUSD waxaan ka rajaynayaa correction inay sidaa usoo gasho. Chance kastoo fursad kastoo up trend waan ka faa'iidaysanaya. AUDUSD NZD/USD labaduba waa isku mid. Waxaan kaliya ka sugayaa waxa weeyaan waa up. Haddii ay sidaa u samayso impulse correction kale haddana impulse correction kale impulse kaliya waxaan sugayaa mar kastaba movement-igan up trend-kaas ayaan sugayaa. Suuqa waxaan ka rajaynayaa AUDUSD NZD/USD inay up noqdaan. NZD/USD AUDUSD waxaan ka rajaynayaa inuu up noqdo. Halka exactly waa laga kici karaa ilaa halkaa waa la aadi karaa. Correction yar waa la soo geli karaa haddana dib baa impulse-gii loo bilaabi karaa. Marka waxaan ka rajaynayaa kaliya movement-kan sugaya waxa weeyaan waa up trend. Suuqu hadduu hoos soo dhaco correction sameeyo geli maayo oo down trend kasii faa'iidaysan maayo. Markastaba chance-kayga meelahan ayaan ka daydayanaya si aan up trend ugu sii raaco. Ilaa halkee baa la gaari karaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa ugu yaraan ilaa halkaana waa la gaari karaa. Marka weekend waxaan ka sugayaa AUDUSD NZD/USD waa maxay waa up trend. USD/CHF haddaan ku xigsiiyey USD/CHF waxay ku jirtay in badan up trend-kan ayay ku jirtay. Up trend-kan waa lasoo dhammaystiray
AUDUSD uptrainkaas waa lasoo dhammaystiray, downtrain ayaa bilowday. Marka AUDUSD iyadana waxaan ka rajeynayaa inuu suuqani uu imika sameeyo impulse correction, impulse kale, correction, impulse kale. Ugu yaraan halkaa waa la tegi karaa ilaa halkaan hoos waa loo sii jebin karaa. Marka dhaqaaqan sugaya waxa weeyaan waa impulsiyadan, kuwaas ayaan raacaya. dadka qaar halkan kasoo qaatay trade-ka way jiraan. haddii aad halkaa kasoo qaadatay waxaan ku odhan lahaa asalka intriga keen hay ilaa iyo halkan waa la gaari karaa ugu yaraan. marka NZD USD USD CHF baan ujeedaa keliyaata waxaan ka sugayaa downtrain. chance kastoo dhowna waan ka faa'iidaysanaya insha allah. USD CHF badanka waxay la yara mid tahay USD Japai. Diega Swayda wixii la mid ah wax kastoo USD ugu horeysa Degas way bay la mid yihiin. hadduu Degas waydu downtrain tahay waxaana kuwa kaloo dhanna down bay noqonayaan. hadday Degas waydu dambaysa labada lacagoodna Degas waxay noqonaysaa lacagtaasi uptrain. NZD USD, AUD USD, Euro USD, GBP USD waxaan ka sugayaa uptrain. USD Japai, USD CHF iyo USD kaada waxaan ka sugayaa waa downtrain. marka exactly USD Japai uptrain dheer baa lagu soo socday ilaa iyo February, uptrainkii uu dhamaaday. marka waxaan ka sugayaa downtrain. marka downtrainkani wuxuu gaari karaa ugu yaraan ilaa halkaa uu jebin karaa, ilaa halkaas waa la gaari karaa. marka Euro USD waxaan ka sugayaa, waxaan ujeedaa USD Japai waxaan ka sugayaa impulse correction, impulse correction, impulse. marka waxaan raacaya waa impulsiyadan kuwa keliyata aan sugaya waxa weeyaan impulsiyada. correctioniskan ma gelayo, waan sugayaa. markastoo correctionkan ayuu kula hadlayaa, inta uu dhaqaaqayuu kuu sheegayaa correction, impulse. movementigaan sugayaa waa kaas. haddii aad halkaa kasoo gashay ama aad halkaa kasoo gashay waa perfect weeyaan. asalka intriga keen ilaa iyo halkaa waa la jebin karaa ilaa xaggaas, ilaa xaggaa hoose ayaa la socdaa. marka USD Japai waxaan ka sugayaa inay ilaa xaggaa hoose qabato. gold dahabka haddaan kusoo gabagabeeyo, dahabka waxaan rajeynayaa suuqan ilaa inuu halkaa gaadho waa 2,500 markasta uu gaadho waxa weeyaan dhaqaaqan impulsigiisii uu dhamaaday. waxaan ka rajeynayaa inuu sidaa usoo dhaco correction, markaa waa soo raaci kartaa. movementigaan ka rajeynaya waxa weeyaan dahabku inuu kor ilaa halkaa aado, kadibna 2,500 waxa ka bilaami kara dhaqaaq dheer oo ilaa meelaha aadi kara, ilaa meelahan iman kara. marka weli waxa u dhiman dahabka, waxa u dhiman hal movementi, kadibna waxay sugaysaa impulse correctionka waa soo raaci kartaa. intaas ayaan ku joojinayaa. haddii aad nagu cusubtay fadlan subscribe saar, haddii aad hore noola socotayna fadlan like saar.